wardegdeg daawadayaal waqtiga idin tahayba wacan ayaa idin leeyahay waxaa soconaya howlgalladii ugu cuslaa ee ka soconaya deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka qaasatan labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saaka dagaalkii ugu cuslaa ay ku qaadeen tuulooyin hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose bal marka hore nala daawada ciidanka oo weeraray goob aan ka fogeyn deegaanka Gandarshi ee gobolka Shabeellaha Hoose. saad aragteen howlgalladani waxay ka dhaceen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa saaka dagaalkii ugu cuslaa waxa ay ku qaadeen meel aan ka fogeyn deegaanka Gandarshe. Ciidanka ayaa sidoo kale dagaalkii ugu cuslaa waxa ay galabnimadii maanta ay la galeen ilaa duhurnimadii kooxda qawaarjaha Al-Shabaab. deegaanka Gandarshe ayuu dagaalkani ka dhacay waxayna ciidamadu jab xoogan ay gaarsiiyeen kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. hub iyo saanado military kooxdu waa laga soo furtay. warka haatan aynu ku helino deegaanadaas ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidamadu ku guuleysteen gabi ahaanba deegaanadaas ay ka nadiifiyaan kooxda qawaarjaha Al-Shabaab. howlgalladani saaka waxaa qaaday ciidanka commandoska gorgor iyo kuwa deegaanka waxayna ciidamadu ku guuleysteen in dhowr jaha oo ka tirsan deegaanka Gandarshe jirib marka ilaa dhanaane ay kaga duulaan kooxda qawaarjaha Al-Shabaab. sidoo kale duqeymo culus ayaa barbar soconayay howlgalladii maanta ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose. warka intaas waxay ku darayaan in ciidanku ay sidoo kale dhowr jaha ay ka weerareen deegaanka Buulanaagi ee gobolka Shabeellaha Hoose. Buulanaagi waxay hoos tagtaa degmada Marka waxaana halkaasi ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka. dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ahaa howlgalkii ugu cuslaa. ciidankuna waxa ay gubeen ilaa 4 gawaari oo ay lahaayeen kooxda qawaarjaha Al-Shabaab. gawaaridani waxaa saarnaa qoryaha loo yaqaan Zuuga iyo dhishikaha waxa ay nabadiidka Al-Shabaab ay ku soo weerareen deegaan aan ku fogeyn deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanaane waa dhul dhaca dhanka xeebta waxayna sidoo kale ciidamadu ay howlgalladaas ay ku sii fidiyeen Gandarshe jirib marka ilaa Dhanaane waxaana halkaasi ciidamadu ay ku guuleysteen inay qaarijiyaan 18 dhagar qabe oo ka tirsan kooxda nabadiidka Al-Shabaab. howlgalladani oo ilaa haatan soconaya ay ciidamadu sidoo kale waxa ay ku guuleysteen in galabnimadan ay dhowr jaha ay ka weeraraan goob isku urursanay nabadiidka Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dabcan iyadoo maalin Ramadaan ay tahay ay waxa ay ku duuleen goobihii qawaarijta waxayna ciidanku ka libin keeneen dagaalkii maanta ay la galeen qawaarijta Al-Shabaab. howlgalladani waxa ay ka dhaceen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidamadu ku guuleysteen in deegaanadii aan soo carbaabnay inay ka farmaroojiyaan kooxda nabadiidka Al-Shabaab. sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ayaa waxaa laga sameeyay tuulooyin aan ka fogeyn deegaanka Dhanaane iyo Jilib marka waxayna halkaasi lagu bartilmaameedsaday koox ka tirsan qawaarjaha Al-Shabaab kuwaasoo doonayay inay soo weeraraan fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidanku haatan ay jihooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi ay ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa oo ka dhana qawaarjaha Al-Shabaab waxayna sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka xoreeyaan kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. howlgalladani waxay ahayn kuwa si weyn u culus waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta jihooyin dhowr ah ay ka nadiifiyeen kooxaha qawaarjaha Al-Shabaab. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo war ka soo saaray howlgalladii maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu xusay taliska in gabi ahaanba ciidanku ay haatan gaafureegayaan goobihii nabadiidku lagula dagaalamay. saad aragteenba muuqaaladii hordhac ahaa iyo kuwii aad daawateenba waxay ahaayeen ciidanka oo gududkii argagixisada Al-Shabaab ay ku dhuumaaleysan jireen ugu galay waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose inay ka nadiifiyaan kooxaha argagixisada Al-Shabaab.
howlgalladan oo si isdaba joog uga soconaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ciidanku haatan ay ku raadjoogaan farxadka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab sidoo kale ciidanka ayaa ku guuleystay deegaano aan ka fogeyn degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose inay ka sameeyaan howlgallo culus oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab howlgalladaasna waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyay qawaarida Al-Shabaab iyadoona gawaari ay afduubteen nabadiidka ciidamadu ay ku guuleysteen inay dib u soo furtaan sidoo kale howlgallo sidaas la mid ah ayaa haatan waxa ay ka soconayaan gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan deegaanka Jabad Godoni ee gobolka Shabeellaha Dhexe Jabad Godoni waxa ay ka mid tahay goobaha dhawaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhawaanna waxa gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim waxaana halkaas sidoo kale ku sugan saraakiil ka tirsan ciidamada Turkida waxaana halkaas laga abaabulayaa duulaankii ugu xooganaa oo ka dhana kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku wajahan jihooyin dhowr ah oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku guud ahaan bahaatan ay gaaf wareegayaan deegaanadii ciidamadu howlgallada ay ka sameeyeen Jabad Godoni dhawaan waxa gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ugu horeeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka waxaana halkaas kulamo uu kula qaatay saraakiil qaybadyada ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya taliyaha wuxuu amray in ciidanka sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhaqaaqaan goobaha lagu tuhunsan yahay in ku dhuumaaleysanayaan argixisada Al-Shabaab wuxuuna taliyuhu sidoo kale uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhawaan qaadi doonaan dagaaladii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab isla waqtigan ba abaabulo xoogan ayaa ka soconaya iyadoona ujeedka ciidamadu ay tahay sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada ama degmooyinka masaajida Cali Guduud iyo Aadan Yabaal oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku saacadaha soo socda ay weerari doonaan goobahaas oo gacanta ku haya nabadiidka Al-Shabaab wararka inuu ka helayno labadaasi degmo ayaa inuu xaqiijinaya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kaabiga ku hayaan degmooyinkaasi waxayna sidoo kale warku intaas ku darayaan in gabi ahaanba ay faarujiyaan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab degmooyinka Aadan Yabaal iyo masaajida Cali Guduud iyagoo ka cabsi qaba duulaanada xoogan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo qaadayaan degmooyinkaasi sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatanba ay howlgallo culus ay ka wadaan deegaanada kala ah Al-Kawthar iyo Daarunimca halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay fariisimo ku leeyihiin kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab deegaanadaasi waxaa ka soconaya galwadnimadan dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa waxaana xalay halkaasi ka dhacay duqeymo xoogan oo lala bartilmaameedsaday kooxda qawaarida ee Al-Shabaab sidoo kale deegaanada Ceel Baraf iyo Ceel Ali Axmed iyo deegaanka Cadaan Lixi ay ciidanku ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab waxayna ciidamadu ay ku guuleysteen in gabi ahaanba goobahaasi ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab warkaynu ku helino Daarunimca iyo Al-Kawthar ayaa waxay sheegayaan in ciidanku ay gabi ahaanba ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka xoreeyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab iyadoona wararku ay sheegayaan in nabadiidku ay iskaga baxeen deegaanada Al-Kawthar iyo Daarunimca kadib duqeymo xoogan oo laba bartilmaameedsaday goobo fariisimo ay ku lahaayeen kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe sidaas ay howlgalladu uga soconayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay wadaan gulufyadii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab sidoo kale howlgallo sidaas la mid ah ayaa waxa ay ka soconayaan gobolka Hiiraan qaasatan deegaano aan ka fogeyn degmada Maxaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaasi waxa ay ka sameeyeen howlgallo culus oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab degmooyinka Maxaas iyo Moqokori iyo deegaano aan ka fogeyn ayay waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatanba ay ku raad joogaan farxadka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab waxayna ciidamadu sidoo kale ay gabi ahaanba haatan ay gaafureegayaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wada abaabuladii ugu xooganaa oo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan loogu xoreynayo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ciidan aad u tiro badan oo macawisley ah ayaa haatanba waxaa laga aruurinayaa degmada Halgan ee gobolka Hiiraan waxaana ciidankaasi ujeedkoodu yahay sidii loogu xoreyn lahaa degmooyinka Maxaas iyo Moqokori oo ay gacanta ku hayaan kooxaha qawaarida ee Al-Shabaab abaabuladii ugu xooganaa ayaa haatan ka soconaya gobolka Hiiraan waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatanba wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab deegaanka Dhisaqtiir ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga sameeyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxayna sidoo kale ciidamadu ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab
jubbooyinka sidoo kale howlgalo sidaasi la mid ah ayaa ka soconayay Bay iyo Bakool waxaana dabcan goboladaasi ay ciidanku ka wadaan abaabuladii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sii laba jibaaray howlgalada ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ee al-shabaab waxaanu talisku xusay in bilooyinka soo socda qawaarida al-shabaab laga nadiifin doono guud ahaan goobaha farku-tiriska ah ay kaga dhuumaaleysanayaan gobolada dalka wuxuuna talisku xusay in abaabuladii ugu dambeeyay ciidanku haatan ay wadaan wixii ku soo kordha howlgalada ka soconaya gobolada dalka janalkeena galcad ayaad ka daawan doontaan fadlan hadduu muuqaalku ku soo gaaro meel leer inoo gaarsay janalkana subscribe inoo leh saad waqti kasta inuu la socoto waad mahadsan